kulanti wacan oo wanaagsan qayaarta wada naga daawaneysay ku soo dhawaada warka telefishinka Ilaa Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo daafuray shir looga hadlayay arrimaha cadaaladda Puntland iyo Galmudug oo heshiisiin kala dhaxdhigay beelo dagaalamay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madoobe oo dowladda Mareykanka kala hadlay dagaalada ka dhanka Al-Shabaab dowladda Uganda oo loogu baaqay in ciidamadeeda ay kala soo baxdo Soomaaliya waxaa maanta magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka lagu soo gabagabeeyay imtixaankii shahaadiga oo maalmihii ugu dambeeyay soconaya wiil oo dhalay madaxweynihii hore ee maamulka Puntland Cabdiraxmaan Faroole oo loo diiday inuu ka soo duulo garoonka diyaaradaha ee magaalada Garowe ciidamo gadood sameeyay oo xirtay wadooyinka soo galo madaxtooyada maamulka Puntland gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo hay'adaha amniga kala shiray sugidda amniga magaalada tan intaasna waxay ahaayeen qodobadii wararka ugu waaweynay ee telefishinka Ilaa